كنت دايح الكبوت كسارو حبنيوه كنت دايح درقرت داهو حبنيوه ننقع عليو قيقود وشعليو kulantii wacan oo wanaagsan dhammaan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meel wadunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo maanta ku la faguri doonada xaaladaha ay ku sugan yihiin kumanaanka qoys ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida oo gaadeenaya ku sugan wadanka Yemen kuwaasi oo sabab gumaysi awgood iyo dhibaatooyin loo geystay kaga soo qaxay wadankoodii hooyo isla mar ahaantaana ku dhibaataysan qurbaha gaar ahaan wadanka Yemen حبنيوه قراتهمي قريدود جعليو حبنيوه قميسيبو قمعو وفيستو wadanka Yemen wuxuu ka mid yahay wadamada ugu faqirsan bariga dhexe isla barahaantaana waa wadankii nabadgelyada siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo cararay dhibaatooyinka ka jira wadanka ama dhibaatooyinka ilaa iminka ka taagan wadankoodii hooyo isla barahaantaana waxa ku nool wadankan Yemen qaxooti Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 3,000 oo qoys kuwaasi oo gebi ahaanba ka soo jeeda dhulka Soomaalida oo gaadeenaya حبنيوه كنت دايح الكبوت كسارو حبنيوه كنت دايح درقرت داهو si aynu faahfaahin dheeraad ugu sii ogaanaan nolosha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira wadankan Yemen ama jooga xiriyaha qaxootiga wadankan Yemen ayaa waxaan la sheekaysanay ama la hadlay TV-ga caalamiga ee gudoomiyaha ururka caalamiga ee OSU Axmed ka warramay arrimo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin sababaha ay u soo qaxayaan dadku waxaana hadaladiisa ka mid ahaa walaalsaad la socotidba dadkan Soomaalida rogaadiya waxa soo qaxinaya maaragtay dhibaatada iyo qaxa iyo badaha ay ku baaba'ayaan wacan waxa way goysiga Itoobiya oo ku haya farabaan oo u geysanaya kufsi dhac iyo boob iyo dil iyo xarig oo aan u kala aabayeeleynin ciroole iyo caamo culimo iyo ciyaal iyo haween iyo hooyo iyo gabadh midna aan u kala aabayeeleynin ayaa sababay inay dadka Soomaalida rogaadeenaya ay qaxaan oo caalamka ay u kala qaxaan dhibaatada aad arkayso waxaa sababtay Itoobiya oo aan maaragtay cidna caabudeynin ayaa sababtay marka saad la socotidba yani dadka Soomaalida rogaadeenaya waa in la xidhay oo jarash rogaadin ku dhimatay iyo in ku baqtay soo ilaa hadda ku jirta in horay ugu dhimato intii waa hore la xidhay lalayahay oo dhimatay oo geeriya nololna la arag iyo in la dilay in la kufsaday in la dhacay dadka xoolahoodii way dhaceen way guriyihii way ka gubeen waxa weeye waxay u geysteen wax dee aan xuquuqul insaanka meel kaga dhacaya oo meel caalamka meel kaga dhac ku ah waxa Itoobiya ku dhaqantana yani waa wax caalamka ka baxsan oo maaragtay liddi ku aha xuquuqul insaanka iyo maaragtay marka taas waxaan kaga gudbi karaa Soomaalida shacabka Soomaalida rogaadeenaya inay maaragtay gacmaha isqabsadaan oo ay maaragtay ka dhiidiyaan gumaysiga sida fooshaxna la dhaqmaya ee u geysanaya gumaadka iyo dhacaya boobka inay maaragtay si wada jir ah ay maaragtay gacmaha isu qabsadaan oo maaragtay dhinac u soo wada jeedsadaan jahliyadaha rogaadeenaya waxaan fariin u dirayaa inay dadkoodii gudaha ogaadeen ku jiray iyaga oo hel iyo ka sugayaan oo ay ka sugayaan oo inay ogaadeen xoreeyaan ay ka sugayaan marka jahliyadaha waxaan leeyahay dadaala kaalinta halka ka jirtaan si 3 jibaaraan leeyahay sidoo kale waxaa soo kordhaya aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka dhiidhinaya arrimaha dawladda Itoobiya ku haysa ama gumaadka dawladda Itoobiya ku haysa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka Soomaaliyeed ee ogaadeenaya sidaas oo ay tahay qaar kamid ah waxay wax ku qoraan website-yada caalamka iyo ko waliba arrimahaasi gaarsiiya caalamka Axmed Cabdi waa qoraa Soomaaliyeed oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika waxaana si aad uga hadlay arrimaha dawladda Itoobiya ay ku haysa ama gumaadka dawladda Itoobiya ay ku haysa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka Soomaalida ogaadeenaya waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بوماتين يا إليس تيفي
walaal dhulka Soomaalida ogaadeen dad badan oo aad loo barakiciyay baa jira waliba sanadadii ugu dambeysay dad badan oo si xun loola dhaqmay bilaadantinimada ka baxsan ayaa jira waxa dadku aad ugu soo qaxayaan wadamada dariska ah gaar ahaan wadamada Kenya Yemen Djibouti Eritrea iyagoo waliba marka qaarkood u sii gudbaya South Africa iyo wadamo fogfog marka dadka Soomaalida ogaadeenaya waxa la rabaa in wadankooda laga barakiciyo lagu beero dad aan la garanayn oo geed qaaqla waxa la sameeynaya waxa loo sii gogol xaaraya shirkadaha shidaalka qoda kuwaas oo lacag far badan lagu siinayo si ay dadka u barakiciyaan intii wax qorayay waxyaalaha iiga la yaabka badnayd waxa kamid ah oo aad ula yaabay dad Soomaaliyeed oo ay af Soomaaliya ku hadlaya oo u labisan dareeska Ethiopia oo la yiraahdo new police oo dadka leynaya gumaad xun oo baan u geysanaya gabdhihii Soomaaliyeed markii ay niman Soomaaliyeed ay kufsanayaan ay dilayaan oo dhacayaan ay gabdhihii ku barato ay ku barayaan walaalayaal leynina Soomaali baan nahay walaalmaydaan muslim ahayn intaadna leynaysaan maadna gursataan haddana ay danka gelin leynayaan arrimaha kale ee cajiibka waxa kamid ah iyaga oo intay gabdhaha kamid ah naas ka gooyeen 2 saac kadib haddana markii dambe ay kufsadeen oo arrimo la yaab laho qalbiga bini'aadanka dhaqaajinayay marka sameynayaan waa hagaag Axmed waxa tahay qoraa Soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha dhulka Soomaalida ogaadeenaya ama shacabka dhibka badan loo geysanaya maadaama tahay halgamaa ka soo jeeda dhulka Soomaalida ogaadeenaya waxaad ku sugantay wadanka Yemen bal waxaad iiga warantaa dhibaatooyinka inta badan soo wajaha shacabka ee dawladda Itoobiya ku soo gumaaday dhulkii haddana ku soo carray qurbaha dadka Soomaalida ogaadeenaya ka soo cararaya gumaadka baan ay u geysanayso Itoobiya horta dadku marka ay Yemen ay imanayaan waxay soo marayaan waa badahana inta badan waad ogtahay wadamada qaarkood waxa maaragtay ku qabsanaya inta ayna badahaba soo gelin dhibaatooyin cabsi ah ayagoo ka baqay in dib loogu celiyo ama loo gacan geliyo Itoobiya marka ay halkan yimaadaan kuma helaan maaragtay daryeel kuma helaan wax wanaagaho oo ay maaragtay la kulmaan ma jiro waa dadkan horta qaxoontinimada wax ku qasbaysa iyo inay ka soo qaxaan waa duruufo jira awgood duruufaas oo ah gumaadkan lagu hayo iyo xaaladda siyaasadeed gobolka jirta waa gartay Axmed xaaladda siyaasadeed gobolka ka jirta waxay sababtaa in shacabkii ogaadeenaya la dabar jaro oo maalin walba dadkii sida aragta loo galiyo arrimo bini'aadanimada ka baxsan loo dhaqmo wadanka Yemen markay yimaadeen maxaa intaas u sii dheeray oo ay la kulmaan oo dawladda Yemen ka soo wajahan horta wadanka Yemen tiraaf baa lagu siiyaa oo waxay haystaan aqoonsi qaxoontinimo la siiyaa oo magangeliye ayay ku haystaan sida ay tahay marka wadadkan waa dadkooda ku xidhan dadkii wadankii mar walba xaaladoodu ay jirto raba inay ka warhayaan halkan inta ay joogaan waxyaalaha ugu daran ee haya waxa weeyaan murugo mar walba inay ku nool yihiin sababtoo ah mar walba telefoonno waxay helayaan dhibaatooyinkii wadankii dadkoogii loo geysanayo shacabkii ayaa la xidhxidhayaa dadkoogii baa marka jeel ogaadeen laga buuxiyey dadkii marka dil baa loo soo sheegayaa waxa loo soo sheegayaa gumaad ba'an baa loo soo sheegayaa marka dadku cabsi bay ku nool yihiin marka ay rabaan in ay saxaafadda la hadlaan oo kale way cabsan waxay u baqayaan dadkooda waxay leeyihiin dadkayga la gumaadaya isirtirtir baa meesha ka jira walaal macaan Axmed dawladda Kristanka ee Itoobiya shacabkii dhibkaas bay u geysatay dawladda Yemen agtooda qaymo ma kala yihiin dadka Soomaaliyeed ee dhulka Soomaalida ogaadeenaya maadaama ay yihiin dad qaxooti ah dadka Soomaalida ogaadeenaya marka ay Yemen yimaadaan waxa loo aqoonsan yahay inay yihiin asylum seekers in magangeliye siyaasadeed ay ku helaan inta marka dadku marka halka yimaadaan shaqooyin kuma haystaan quman oo dumarku waad ogtahay waxa inta badan ay guriga ay u shaqeeyaan raggu iska badaa warkooga in ay Sacuudiga ay u sii gudbaan oo xadadka marka ay ka talaabaan dhibaatooyin fara badan bay la kulmaan waa la rasaaseeyaa marka qaarkood dhagax baa lagu dilay hadda shalay waxa la soo sheegay in nin Axmed la dhaho dhagax lagu dilay marka dhibaatooyin aad u fara badan ba wadan ay la kulmaan walaal dadka Soomaalida ogaadeenaya sidaas si lamid ah Xaliimo waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida ogaadeenaya ee ku sugan wadankan Yemen munaasabada ay maanta isugu yimaadeen dadka Soomaalida ee ogaadeenaya magaalada Sanaa caasimadda wadanka Yemen oo lagu bariyay dhaqanka iyo taariikhda dhulka Soomaalida ogaadeenaya ayaa waxay ka soo jeedisay gabi aad u qiiro badan isla mar ahaantaana dad badan ka ilmeysiyay
الله أكبر شهادتي كويستريحاني إسلامي ماذا أوجد نواين يتكالاني الله ورك تاجردو أرك سويه أذاك الأمورتان أركان دين أوجيسيني نيل كبنينكي قالي إن أركتي وياني إنجليز لو قحور لا بوايو الدنيا دمانتيد لو أرحامي وايو أمبايل انتو يقضى علي وابراي انتو وساقي أمرنا وين دالاني أفريكان حوين هذا الرساس كقاعد كاتاي إريقات راهنا مركا وقبالياي إبت ملك ويانو إني أولش موياني إذا ملك وياندو إني أولش موياني ورعار وبكيلو أمرا والله مكاقي إنو آيهني اللماد ودا عركيساني وإن أبليدي الرساس للابراراي وإن أحماري تقري لغو إلياي وين وردا يدا قبلون عمر كوسياي أفريكان حوين دراساس كقاعد كاتاي إريقات راهنا مركب وقبالياي إذا ملي أبودي وينو أولا موياني إذا ملي أبودي وينو أولا موياني محاي maxaani adeerkay diliyo aabayahoyo maxay heeladaydii dhammaan wada agoonteeyey maxaani adeerkay diliyo aabayahoyo abrisiyo abeesadan maxaa nagu aluumeeyey afrikaan xun waa inaad rasaas kaga adkaatahay eraygaa tidhaahana markaa wuu aqbaalayaay إذا ملئ أبودي وإنو أولولا موياني انت والحرود اللي تراي حبادي تورتي وحاولي إيو دادبانا ودا حنباريسي انت قبر حال دلي أما حاكيني يا شيخبا انت بو أحمر حيدي وحب وحكاغا قادي مركان تا حسوستنا قلبي ويحنتانا ياي حبشكا تراهي نيدو إيغا حنونتاي حرني مدي حقي نيلومي وحلال akhyaarta qiimaha iyo qadarintii naga mudan oo meel walba aad dunida ka joogtaan gabigaas ayaa u dambeeyay barnaamijkii maanta kaga hadlaynay arrimaha dadka Soomaalida Ogaadeniya ama dhibaatooyinka inta badan ay u geysata dawladda Ethiopia dadka Soomaalida ka soo jeeda dhulka Soomaalida Ogaadeniya barnaamijka anigoo Muuse Halgan ayaa idin soo diyaariyay oo idin la socodsiinay TV-ga la soo kala socoteen barnaamijka dhanka farsamada iyo kaamirada waa mahadiha ka gaadhay Axmed Cabdi taniya kulan dambe hadii ay ogolaado waa Muuse Halgan ku dhaafiyo nabadgelyo xubnayow ninga caaliyo gayigoodu jeceliyo كما حبنا هديدي تدخلي أنقبلو حبنا يوهو قراتنمي كريدو دا تشعليو حبنا يوهو قميسيقو قمعو وفيستو حبنا يوهو كنت دايح الكبوت كسارو